السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada daawadayaal waraysi gaar ah oo aynu la yeelan doono Karsten Potts oo ah nin maraykan ah isla markaana luuqada Soomaaliga barashadeeda ku jira muddo yarna Soomaaliga kula qabsaday haatana ku hamiyaya inuu qoro buugaag Soomaaliya. sidoo kale Karsten oo ku dhaqan dalkaasi Maraykanka marar badanna aaday dhulka Soomaalida. waxaanu ka waraysan doonaa bal waxyaabihii uu Soomaaliya kala soo kulmay iyo sidoo kale bal luuqada Soomaaliga sidii uu ku bartay. Karsten soo dhawow marka hore. iska warama. soo dhawow waa nabad waa la fiicantay. waa fiicanahay. bal marka hore waxaad dadka uga warantaa qofka aad tahay. Karsten waayo may maqashaa qofka American baan ahay. warbixin naftaada ku saabsan bal nooga sheekee. okay macalin baan ahay. af ingiriiska waa degaya. Minnesota waa ka shaqayn jiray. iminkana Minnesota waan joogaa laakiin bisha soo socotaa Djibouti waa aadaya. school virtual ama school online waa bilaabay. Djibouti waa noolaan doonaa. meeshaas waa soo guraya. schoolkaygana waa ka shaqaynaya. Djibouti baad usoo guuraysaa hore ma u timi Djibouti? shan jeer waan tegay. igaad waa la shaqayn jiray. igad baad la shaqayn jirtay urur goboleedka igaad. so sanadka 2013 meeshaas waa tegay. hal bil waa joogay waa ka baxay. sanadka soo socota waa soo noqday waa ku noqday Djibouti. igaad waa ka shaqeeyay 7 maalmood 7 bilood. 7 bilood. kadib 2018 Djibouti waa tegay bil waa joogay. solar xerada kahoti ali cadde waa u geeyay. kadib sanadka 2019 Djibouti waa tegay 7 bilood waa joogay. America waa soo noqday. bisha hore ama bisha saddexaad sanadkan bil waa joogay. iminkana waxaan joogaa Minnesota. America. laakiin bisha soo socota Djibouti waa ku noqonaya insha allah. Karsten luuqada Soomaaliga inaad barato goorma ayaad bilowday? sanadka 2013 waa bilaabay. Minnesota waa bilaabay. laakiin Djibouti waa kasii fiicnaanay. Djibouti markii aad tagtay luuqadii waad sii baratay. dadka Soomaaliyeed Djibouti degan ayaad luuqadii kula sheekaysatay sidaa daraaddeed bay kuugu fududaatay inaad barato miya? sababto dadka Djibouti af ingiriis kuma hadlaan. mar badan kuma hadlaan. af Faransiis way ku hadlaan. so af Faransiis waa ku hadlaa laakiin marka Djibouti aan joogaa af ingiriis kuma hadli karo. ma jiraan buugaagaad qortay amaba buugaagaad hadda soo wado oo Soomaaliya amaba kuwa sheekooyinka Soomaalida sida Juxo oo kale mar aynu si gaar oo wada sheekaysanay waxyaabaha aynu ka wada hadli jirnay waxaa ka mid ahaa in sheekooyinkii Juxa qaar ka mid ah aad buug ku qoraysid aadna diyaarinaysid. maxaad xasuusataa sheekooyinka aad qortay amaba aad doonaysay inaad u rogto Ingiriisida ee ah sheekooyinka Soomaalida deegaamadeeda caanka ka ah? so ani iyo saaxiibkay buug waa qornay. saaxiibkay Cabdirahiin af Soomaali iyo af Ingiriis waa ku qornay. buugga waxaa la yidhaahdaa Juha 11 dameer. buugga waxaa la yidhahdaa Juxe iyo 11kii dameer. haye ma akhriya. waad akhriyi kartaa. noo akhri. okay ninkan waa Juha. waxaa idinka wadna sheeko cajiib ah. maalin maalmaha ka mid ah Juha wuxuu go'aansaday inuu aado suuqa si uu iskaga iibiyo dameerahiisa. wuxuu lahaa
kow iyo toban dameer intuna bixin ka hor wuu tiriyey si uu xaqiijiyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kow iyo toban sax si wacan kow iyo tobankii dameer way u ilaadeen haye Oops. Inta kadib dameer ka mida dameerihii ayuu koray suuqana wuu sii aaday isagoo dameerkii saaran ayuu tiriyey mar kale haye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 misna waxay noqdeen 10 dameer hal ayaaba maqan haye wuu walwalay wuxuu u maleeyey inuu hal dameer ka lume haye isagoo walwalsan ayuu suuqa xoolaha gaaday haye oday ayaa arkay isagoo weli walwalsan haye wuxuuna weydiiyey maxaa u walwalsan tahay juha wuxuu yidhi 1 iyo toban dameer ayaan watay hal ayaa iga lume haye odaygii ayaa ku yidhi ka deg midka aad saran tahay ee tiri haye 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 iyo toban waa gart sax 1 iyo tobankii dameer way u ilaadeen haye aad ayaad u mahadsan tahay dameerkaygii ayaad ii heshay haye sidee ku heshay ayuu yidhi juha sidee ku heshay uu yidhi haye ya wuxuu u maleeyey odayga ayuu helay haye inuu dameerku odaygu waxaa himaantay dameerkii aad sarneed haye ayuu ku yidhi haye si wacan ya buug labaad waa koray rabnaa haye ani bu- so af ingiriiska waa koray haye sawir waa sawire haye saaxiibkay af soomaali wuu ku koray saaxiibkan saaxiibkay afmaan cabdisalaan cusmaan Karsten markii aad timi dhulka Soomaalida markaad maqashay sheekooyinka Soomaalida dhexdooda ama la isugu looga sheekeeyo caruurta amaba sheekooyinka kale ee xigmadaha bani ku dheehan tahay sida sheekadaas iminka aad ka sheekaysay ee juxo oo kale maxaad dareentay sidee baad u aragtay sheekooyinkaas sheekooyinkaas waa ka helay way ciyaalka way ka baran kartaan way ka baran karaan sheekooyin igaal shideed waa maqlay cigaal shidaadna waad maqashay iyo degdeer iyo dhegdheer haye iyo sheekooyinka juha way fiican yihiin todoba waa maqlay lakin si fiican kuma sheegi karo sida waa ku sheegay saaxiibkayga si fiican wuu ku koray buugan si wacan waxyaabaha kale ee aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxay tahay dhowaan waxaad bilowday inaad luuqadda ingiriisida lafteeda aad ka caawiso dhalinyarada soomaaliyeed ee doonaysa inay luuqadda si fiican u bartaan adigoo maraynu hore u wada sheekaysanay sheegay inaad bilaabayso koorsooyin cusub oo luuqadda ingiriisida ah qorshahaasi muxuu yahay aada luuqadda ku bilaabaysaa sidee ayaad u baraysaa dhalinyarta okay so iskuulkayga online waa furay casharadana waa soo degaya alada zoom meeting waan isticmaalaya casharadaas qaybta ugu hore waa cashar buug waa u tusaya ardaydeeda lakin kadib qaybta labaad waa ku hadalka waa sameynayna waa isla hadlaynaa wada hadalka waa muhiim sax in luuqadda laga dhiso dadka sida loogu hadlo sax sababto ardaydeeda Djibouti Eastleigh Nairobi ardaydeeda Africa joogaan sharciga ama grammarka af ingiriiska si fiican way garanayaan lakin idna lama hadlayaan
so hadda ilaa hadlayan af lahjadeeda way baranayaan geesi way noqonayaan si fiican waa fahmay sababto marka af Soomaali waa baranaye waa ka absaday markaan ku hadlay waa ka absaday dareemi karaa sax bilowga luqad kasta qofku markuu ku cusub yahay badanaa uu ka cabsadaa inuu luqadaasi ku hadlo sidaa daraaddeed dad badan oo soomaaliyan oo luqadda ingiriisiga saad sheegtay waxay iyagoo yaqaano naxwaheedii ayay ka cabsadaan inay ku hadlaan marka koorsooyinkaad bilaabaysaa waa kuwo aad ku dhiiri gelinaysid sida ay luqadda ugu hadli lahaayeen oo kale si wacan so yeah iminka link waa ku kori kartaa soo maaha ha link iskuulkayga okay iyo youtube-kayga so iskuulkayga waa furay lakin 10 bilaash youtube waa gelinaya okay okay waa u sharaxaynaa dadka sida uu sheegay wuxuu leeyahay maxay ahaatay Karsten wuxuu leeyahay youtube channel halkan aan kusoo qori doonaa oo hadhow qofkii jecel inuu booqdo youtube-kiisa uu tegi karaa uu keli garayn karaa sidoo kale koorsooyinkan waa koorsooyin uu bixiyo oo dad badan oo jooga Djibouti Nairobi sida uu sheegay iyo kuwo kale oo dhulka Soomaalida oo ugu talagalay inay ka faa'iideystaan marka kale cidii jecel inay koorsooyinka Ingiriiska bartaan laftoodu isaga ay la xiriiri doonaan halkan aan kale idinku dhaafi doonaa haddii Ilaahay ka dhigo youtube channelkiisa iyo emailkiisa iyo wixii xogahaasi la xiriira Karsten haddaynu soo noqono safaradii aad ku tagtay dhulka Soomaalida markii aad dadka Soomaaliyeed la kulantay wadad noocee baad ku sifayn lahayd Soomaalida ma ifahmi karaan ma weydiinaysaa oh yeah so way fahmayaan mar boqolkiiba 5 iyo 9 way fahmayaan lakin sida waa ka idhi maalin walba waa kasii baranaya lakin marka jijiga iyo kabarbaya aan tagay dadka meeshaas way ifahmeen af amharic kuma hadlo iyo af Francis kuma hadlayaan dadka Ethiopia so marka Djibouti aan joogaa si fiican way fahmayaan lakin meeshaas in badan waa jooge lahjada Djibouti si fiican waa garanaya af Franciscana waa isticmaali karaa marka meeshaas aan joogaa Karsten siduu sheegay markii uu tegay Djibouti oo kale inta badan maadaama oo dadyow kala duwan ay Djibouti ku nool yihiin luqadda Soomaaliga aad looguma hadlo marka laga yimaado xaafadaha iyo laakiinse dadku waxa luqadda koowaad ay isku fahmaan Djibouti maadaama qoomiyado kala duwan ay degan yihiin Carabi degan tahay Canfari degan tahay waa luqadda Faransiiska balse waxa uu sheegay markii uu tegay qabri bayaxya jigjiga iyo maadaama isagoo uu Soomaali ku hadlayay in dadkii si wacan ay isu fahmeen luqadina runtii uu ku soo bartay haddana hamigiisu waxa uu yahay inuu Djibouti u guuro iyo xaggaas inuu dego Karsten gabagabadii waraysigeena ayaynu maraynaa ugu dambeyntii maxaad odhan lahayd dadka Soomaaliyeed ee ku daawanaya ama ku dhegeysanaya iminka su-aasha waa maxay haddaan kugu celiyo su-aasha maxaad ugu dambeyntii odhan lahayd dadka Soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya what do you want to say Somali people waa mahadsantihiin dad furan iyo wanaagsan baa tihiin marka meel Somali marka Hargeysa ama Djibouti ama Jijiga aan tago waa ammaan dadka way ammaan yihiin dib ma arkayo dambi ma arkayo waa mahadsantihiin aad iyo aad ba adiguna umahadsan tahay waxa uu sheegay in xilliyada uu wadankii tago aanu wax dhibaateeyo ku arag magaalooyinkaasu tegay ama Djibouti ama Jigjiga ama Hargeysa ama dhulka kale ee Soomaalidu degan tahayba runtiina muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu ku howlanaa luqadda Soomaaliga inuu si fudud u barto 2013 ayaa uu geedigiisa waxbarashada luqadda Soomaaliga uu bilaabay maantana luqadda si wacan buu ugu hadlaa waana mid ka mid ah
macalimiinta dugsiyada ku yaala magaalada minnesota ee dalkaasi maraykanka isagoo haatan sheegayba inuu guurayo sida waraysiga qeybihiisa hore ku jirtay magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti. Karsten, aad baad u mahadsan tahay waktiga aadna siisay iyo weliba wada sheekaysigaasina dhex maray ee ku saabsanaa barashada luuqadda soomaaliga iyo weliba safaradaadii aad ku tagtay dhulka soomaalida. Aad baad u mahadsantahay. aad